waxaana sankeeda ka yimid dhiig kadibna waa ay suuxday meesha ay ku dhacday. Assalaamu calaykum daawadayaal, maanta waxaan fasiri doonaa qisadan jacaylka. Qisadan waa qiso aad u yar laakiin leh xigmado badan. Qisadan waxay ka bilaabatay gabadhan ayaa meesha ku sugaysay wiil ay jecleed, kadibna wuxuu yimid isagoo la socda laba ka mid ah asxaabtiisa. Kadib waxa ay u keentay hadiyad ay u soo iibisay uguna talagashay inay uga farxiso. Wiilka ayaa hadiyadii furay wuxuuna yiri waa hadiyad aad iyo aad ii anfacday. Intaas kadib waxay go'aansadeen inay ku sheekaystaan meesha xoogaa. Waxa ay gudagadleen in ay sheekaystaan oo ay cabaar meesha isku xog wareystaan. Kadib gabadha aabaheed ayaa wuxuu istaagay gadaasheeda isagoo saaran gaari. Gabadha ayaa durbo aqoonsatay gaariga aabaheed, waxa ayna gacanta qabatay wiilka is jeclaayeen, waxaana u sheegtay in meesha aabaheed yimid ayna iskaga cararaan. Laakiin waxa qisada xamaasadda u sii yeelay waxa weeye wiilkan oo ahaa wiilka ay gabadha ku daqraneed ma uusan jeclaan, laakiin waxa jira wiil kale oo iyada jeclaa. Yarkan wuxuu markasta kor ka eegi jiray dhaqaaqyada ay sameynayaan maadaama ay tahay gabadhan qofkii uu jeclaa uusan hanan karin. Gabadhan waxay jecleed yarkaan ay jecleed waxayna raaci jirtay waqti kasta raaci jirtay, laakiin yarkaas kale dankama ay salaheen. Fursadna maysan sii jirin, fursad uga faa'iideystana maysan sii jirin ama uu sheegto jacaylka uu qabo uu sheegto asagu, laakiin isagoo sahari jirin markasta uu daba raaci jiray wuxuuna ilaali jiray. Hamiinada kamid waxa dhacday in asxaabtiisu message u soo direen isagoo qol cidla dhex fadhiya oo ka fakara qaabka umar gabadhaas u hanan lahaa. Asxaabtiisa waxay u sheegeen in ay gabadha u jeclaa ay wiil kale kala cashaynayso mid kamid ah maqaayadaha ku yaala magaalada, taasina asaga kama ay sadahsooneen. Waxa cajiiba wiilkan wuxuu bixin laayay lacagtii kadib markii uu ka soo tagay boorsadiisa lacagtu ugu jirtay. Kadib gabadhan ayaa lacagta bixisay iyadoo isla soo jiido wiilkan soo jiido iskana indha tiraysa yarkaas kale jacaylkiisa. Waxay bixisay lacagtii bixisay kadibna waxay ku macsalaamaysay maqaayadii ay joogeen ku macsalaamaysay. Laakiin markii ay tagtay durbo waxa qabtay aabaheed oo meesha ku soo sugayay isagoo ku yiri kaar ninkaas. Kadib waxay ku tiri waan jeclaa kama hari karo. Kadibna aabaheed wuu dharbaaxay maadaama la yiri kor waa yeel waa wadayndho oo ay wax badan arki karaan waalidku. Waa uu dharbaaxay wuxuu yiri waa inaan ninkaas ka hartaa. Intaas kadib wuxuu aabaheed uga dhaqaaqay gabadhii meesha iyadoo ooyeyso meesha uga tagay. Kadibna waxay u fikirtay waxayna aad guriga saaxiibkeed ay guriga ku gargaraacday kadibna iyadoo ooyeyso ay ka soo horbaxday waxayna gelisay laabta. Laakiin isagoo damba kama awso leheen oo mar dambe ayuu si tartiib ah gacmaha ugu qabtay isagoo eeg ruux aan dareemayn xanuunka gabadhan haya. Gabadhan waxay go'aansatay inay waalidkeed ka dheeraato, taas beddelkeedana ay la noolaatay saaxiibkeed. Fikirkaas waa fikir aad u qaldan. Intaas kadib gabadhii waxay ay fulisay go'aankii maskaxdeeda ka guuxaya oo ahaa inay ku noolaato guriga saaxiibkeed, halkaas oo isdhehaysay waxa ka heli doontaa nolol ka qiimo badan nolosha ku haysta guriga hooyada. Maalin maalmaha kamid ah iyadoo badar u karinaysay saaxiibkeed waxa ku soo booday xanuun, kadibna waxa ay dareentay qandho aad u daran dareentay, waxaana sankeeda ka yimid dhiig kadibna waa ay suuxday meesha ay ku dhacday. Waxa durba soo galay guriga oo daaqada ka soo galay jeclaa oo kor ka eegaya markii hore lana socday xaaladda isagoo ah markasta waardiyaha ag taagan wuxuuna geeyay isbitaalka. Laakiin isbitaalka waxa uu daba tagay yarkii iyadoo jecleed oo iska dhigayay qof aad iyo aad u jecel. Kadibna wuxuu bilaabay inuu ku dul ooyo kuna dul barorto gabadhii isagoo iska dhigayay ruux aad iyo aad u dareemaya dhibaatada gabadhaas haysata. Wuxuu ku siinayay gudaha isbitaalka badar si uu u dareensiyo inuu yahay qofka asoo sida dhabta u jecel gabadhan. Yarkii kalena wuxuu ka fiirinaya daaqadu ka eegayay gabadha. Kadib waxa baxay saaxiibkeed wuxuuna kala jaanis uga faa'iideysan karo. Kadibna wuxuu isku dayay inuu ka faa'iideysto oo u sheegtay gabadhan jacaylka uu qabo maadaama uu soo badbaadiyay intaasna uu daba socday. Wuxuu soo taagay gacanta si uu u salaamo marka hore, laakiin waxay ku adkaysay salaantii ku adkaysay wayna ka qaadid salaantii. wiilka wuxuu kor u qaaday gacantiisa kadibna wuxuu fiirshay calaacadihiisa isagoo isweydiinaya maxay tahay sababta ay kugu diidantaa gabadhan maadaama intaas daba socotay. Kadibna waxaa soo galay saaxiibkeeda soo galay isagoo qolka ku dhex jira oo wali qolka ku dhex oynaya. Kadib wuu fiirshay kadibna way soo istaagtay way kor iyo isku soo qaaday waxayna gelisay laabta. Halkaas waxaa ku sooxay yarkii gabadha jeclaa isagoo ku geeriyooday wadna xanuun. Haddaba maxaa ka fahantay qisadan, maxaa sameyn lahayd wadi kugu dhacdo? Waxaan ka codsanaa channelkan subscribe saatiin sidoo kalena aad like dhahdeen.